Israa'iil oo xasuuq ka geysatay Gaza. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay isbitaalka Gaza, waxaana la sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen 500 oo qof. Dhacdadan waxay tahay xasuuq weyn oo weli Israa'iil ay ka wado marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ay bartilmaameedsanayaan kooxaha Xamaas, inkastoo weli aanan jirin khasaare ay u geysteen ururka Xamaas. Warbaahinta Al Jazeera iyo warbaahinada kale waxay soo tabinayaan xasuuqa caawa Israa'iil ay ka geysatay isbitaal ku yaala Gaza, waxaana la sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalinta beriya la filayo in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu gaaro magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil, waxaana uu kula ballansanaa halkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu, madaxweynaha Israa'iil iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Israa'iil. Dhacdadan ayaa dadka Muslimiinta waxay u arki doonaan is-sifeyn ay ka wado Israa'iil marinka Gaza, inkastoo dalalka reer galbeedka ay sheegeen in Israa'iil ay isdifaacayso oo ay ka jawaabayso weerarka ururka Xamaas ay ku qaadeen 7 bishan aan ku guda jirno. Laakiin Israa'iil ayaa burburin xooggan waxay ka geysatay marinka Gaza, iyadoo markii hore dadka shacabka ku nool marinka Gaza ay u diiday in loo fasaxo biyaha, korontada iyo cuntada, inkastoo dowladda Masar maalintii shalay ay sheegtay in raashinka gargaarka degdegga ee dalkeeda ku xayiran loo gudbin doono deegaanada marinka Gaza, oo la sheegay in ay ku sugan yihiin dad badan oo Falastiin ah kuwaasi oo u baahan in raashin la gaarsiiyo. Hay'adaha Qaramada Midoobay ayaa ka digaya xaaladda bini'aadantinimo ee ka dhalan karta marinka Gaza, maadaama muddo 2 isbuuc ku dhow ay xayiran yihiin dhammaan wadooyinka iyo magaalada Gaza. Waxaan sugi doonaa jawaabta ay bixiyaan dalalka caalamka Islaamka, inkastoo maalmihii u dambeeyay madaxweynayaasha dalalka Iiraan, Masar, Turkiga iyo madaxweynayaal kale ay ka wada hadlayeen sidii loo joojin lahaa dagaalada ka socda dalka Falastiin. Waxaana madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Iiraan ay si kulul uga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyay Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza. Xalay ayaa waxaa guuldareystay qaraarkii dowladda Ruushka ay rabtay in lagu joojiyo dagaalada ka socda marinka Gaza iyo sidii loo fasaxi lahaa gargaarka raashinka ku xayiran dalka Masar. Caawan waxaa la filayaa in cod loo qaado qaraarka dowladda Brazil ee wado kaasi oo ku saabsan in la cambaareeyo falalkii ay ku kaceen ururka Xamaas iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dhulka Falastiiniyiinta. Hogaamiyaasha ururka Xamaas ayaa la filayaa saacadaha soo socda in ay ka hadlaan xasuuqa Israa'iil ay ka geysatay isbitaal ku yaala Gaza. Israa'iil ayaa maalintii shalay ilaa maanta waxay ugu digaysay dhakhaatiirta isbitaalada in ay ka baxaan, walow dhakhaatiirta isbitaalada Gaza ay ku adkaysteen in ay ka shaqeynayaan oo ay u shaqeynayaan shacabkooda Falastiiniyiinta. Wixii kusoo kordha barnaamijyadan dambe ayaad ku daawan doontaan.